United oo loo sheegay inay shaqada ka celiso tababare Erik ten Hag iyo Manchester oo dhigtay rikoor xun oo ayna hore u dhigin. Haddaba muxuu yahay rikoorkaasi? Muuqaalkan ayaan kugula wadaagi doonaa ee soo dhawow wade, balse marka hore like sar muuqaalka sina share garee. Haliga kooxda kubadda cagta Liverpool Danny Murphy ayaa ugu baaqay maamulka kooxda Manchester United inay shaqada ka celiyaan tababaraha reer Holland ee Erik ten Hag. Tababaraha reer Holland ayaa cadaadis kala kulmaya Man United kadib markii Ridley Feliz ay guuldaro 3-1 ka soo gaartay Bournemouth kulan qaybka horyaalka Premier League. Danny Murphy ayaa ku yiri hadal uu siiyay wargeyska Daily Mail, Bournemouth waxay 3 gool ka dhalisay Man United waxaana ay dhalin kareen 4 gool. Natiijaduna waxay cadeen u ahayd in kooxdu ay dhibaato ku jirto. Isagoo hadalkiisa wata waxa uu yiri Man United ma doonayso inay sii aado Anfield oo looga badiyo 5 gool. Waxaa kulankii hore garoonkaasi looga badiyay 7 gool bishii March ee la soo dhaafay ciyaar dhacday. Isagoo hadalkiisa wata ayuu yiri waa ceeb sababtoo ah Ten Hag waa nin caan ah, laakiin waxaan dareemayaa in shaqada tababarnimo ee Man United ay xilli hore isagu u dimid. Wuxuu ku soo gabagabay hadalkiisa waxaa la joogaa waqtigii isbedelka isla markaana la ceeri lahaa Ten Hag, laakiin waa haddii ay qorshe diyaar u ah leeyihiin ma jirto wax micno ah in la ceeriyo Ten Hag hadda ilaa Man United ay karanayso waxay rabto inay sameyso ayuu hadalkiisii raaciyay laacibkii hore Liverpool Danny Murphy. Dhinaca kale Manchester United ayaa dhigtay rikoor xun oo ayna hore u dhigin. Kooxda 20 jeer ku guuleysatay horyaalka Premier League ayaa 2 gool kaga badisay Chelsea kulankii bartamihii toddobaadkii hore, laakiin waxay ku fashilmeen inay guul ku gaaraan kulankoodii labaad oo xiriir ah garoonka Old Trafford. Natiijadii xalay ee Bournemouth waxay ahayd markii ugu horeysay oo Man United looga badiyo kulan Premier League ah oo ay ku ciyaarto Old Trafford 3 gool iyo wax ka badan oo ay ka dhaliso koox ku jirta kaalmaha dhexe ee horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League kala sareyntiisa. Manchester ayaa weli ku jirta kaalinta 6aad ee kala sareynta iyadoo 27 dhibcood ka heshay 16 kulan oo ay ciyaartay, taas oo ka dhigtay inay 3 dhibcood ka dambeeyaan Manchester City oo ku jirta booska afraad. Haddii aad la soo gaartay ilaa dhamaadka muuqaalka ku mahadsantahay like sar muuqaalka sina share garee mahadsanid.